بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي وعن إذا لها بخيرتها وذا نقل سعوتها إيميل كسويد جوجتان حلقة وتلفزيون كقرن كجمهورية الصومال استوديوها كوباد إما قال ده هرجيس برنامج كنيني وبرنامج كهذا أنا وكلا أيضا شاشة تلفزيون كقرن كأتكده هنشرتين كلا سوعن شرتين وبرنامج كني مدرسة حال أبوركا برنامج كمدرسة حال أبوركا أو على أبان وكسو قادنا قيبها كلا قدستان الدقن كفن كيسويجانتها ayaanu hadda aan ugu soo xulnaa kuna soo qaadanaa qaybaha kala duwan ee ay maansooyinka iyo guud ahaan suugaantu ay ka kooban tahay curiyaal iyo waliba hal abuuro ayaana alaba marti igu noqda toddobaadkana waxa marti igu ah hal abuurad curiye maansayahanada Khadra Ibrahim Ismail Khadri waa macallimad ku xeel dheer suugaanta iyo dhaqanka waa hal abuurad curisa qaybaha kala gudubsan ama qaybo kamid ah maansooyinka iyo waliba suugaanta noocyadeeda kala duwan qaybo kamid ah Khadri waxa ay nagu soo boqotay stuudiyaha telefishinka qaranka Jamhuuriyadda Somaliland waxaynu inala wadaagi doontaa qaybo kamid ah suugaanta ay curisay Khadra ku soo dhawow telefishinka qaranka barnaamijka madasha hal abuurka ee fanka suugaanta waad mahadsantahay xamsi waan dhawahay dareenku ma gaari karo garadku ma duubi karo dibnuhu ma macnayn karaan sifaadkaaga dayr ma xidho dareenku ma gaari karo garadku ma duubi karo dibnuhu ma macnayn karaan qoftaana inuu dhexgalo ku daalay ma dhaafi karo intii dabin ii xidhxidhan intii bala ii dahsoon intii dalag loogu dhaco taluumaha ii qarsoon rabbow dabacaaga saar wahagaag ugu horeyn curiya tahay hal abuur waxaan jeclahay si kooban bal hada background-kaaga taariikhdaada iyo intaynaan u iman bal hada qaybaha suugaantaada Khadri waa qof noocee ah bismillaahir rahmaanir rahiim marka hore saad sheegtay magacaygu waa Khadra Ibrahim Ismail ugu horeynba horta waxaan salaamayaa shaqaalaha kala duwan ee telefishinka qaranka Jamhuuriyadda Somaliland oo ay maanta igu horeysay inaan ku soo booqdo xafiiskooda waxaan leeyahay waad ku mahadsantihiin soo dhaweyntiina waxaan ahay horta macallimad baan ahay macallimadeeda waxa ii raaca inaan ahay hal abuurad waxaan hal abuuraa marka maansooyinka haddaan kaaga soo waramo background-kayga maansanimo unban waxaan filayaa maanta ka warrami doonaa waxaan horta ka shaqayn jiray iskuulka la yiraahdo Ilays Primary School branchka Jigjigeer ku yaala magaalada Hargeysa marka xilligaasi aan macallimad ahaa waxaan aad u jeclaan jiray inaan suugaanta akhriyo caruurtana marka dareenkayga aan la wadaago marka dareenkaygii aan la wadaagay caruurta waxaan isku day jiray marka inaan soo qaato tuduciyo kamid ah maansooyin ay abwaana leeyihiin marka caruurteed waxay alaaba sameeyaan barnaamijyo ay ka sameeyaan safafka caruurta hore marka barnaamijyadaas waxaan sameyn jiray tuduciyadaas waxaan u saari jiray laxan yar baan u saari jiray caruurta oo marka da'dooda aad u yaray marka way qaadi jireen caruurtu barnaamijyadaas suugaantii hore iyo dadkaas lahaayeen abwaanadeenan hore lahaayeen way marka waxa iga dhamaatay ruuxii aan doorbidayo marka de caruurtiina la jaan qaadi kara oo inta badan caruurtu wax kasta de ma fahmi karaan marka waxaan isku day jiray inaan soo qaato meelaha caruurtu fahmayso markii dambe waxa marka aan doorbido bal waxaan isir mar adiguba wax isku deydid xilligaaba waxaan isbilaabay inaan sameeyo anigu heesa yaryar oo la jaan qaadi kara aqliga caruurta heesahaas marka waxaan waliba u saari jiray laxan yar baan ugu sameyn jiray caruurtu marka way ku luuqeyn jireen barnaamij kasto marka caruurtu leedahay ay ka sameyn jireen sidaas horta hawsheeda hal abuurnimo ku bilaabantay waxa kale aan sameyn jiray
marka dhacdooyin baa marka kulbada xaalad baa wadanka ka jirta marka laga soo tago marka taa barnaamijka waxbarashada inta badan ku saabsanaa oo ay iigu xigtay intaanan halkaa ka bixin waxaan sameeyay masraxiyad baan sameeyay qolo iyaguna urur haweenleyna ururka guddoon la islaamiya ayaa soo bandhigay barnaamij runtii waxaan sameeyay masraxiyad aan kaga hadlayay marka telefoonada xilliga noo soo baxeen telefoonada smartphones ka la yiraahdo oo anoo macallimimadeeda khibradeyda macallin markaan tijaabiyay waxbarashadii saameyn badan ku yeeshay marka runtii waxaan markasta ka fikri jiray waxaan isbarbar dhigi jiray xilligii aanay telefoonadani jirin waxbarashadu sida ahayd xaruntii u dadaali jireen iyo markan dambe sidii halkaasi loo mahadiyay marka runtii anagoo taa ka duulaya ayaa waxaan sameeyay masraxiyadaas marka iyadana sameeyay markii iigu sii xigtay waxa dhacday runtii shil aad u fool xun oo aad uga naxay oo Soomaalida waxay ku maahmaadaa ciil waa kii aad la gabaydo wuxuu baa qofka ka keenaa ama farxad baa ka keenaysaa ama naxdin baa ka keenaysaa waxa dhacday marka inaan aan isku klaasan jirnay Ilaahay u naxariisto ayaa waxay kamid ahayd dadkii shilka foosha xun leh ku helay Masar ee tahriibayaasha ahaa marka xilligaasi waxay ahayd xilligii ugu murugada badnayd ee maansooyin badan oo ku saabsan tahriibka aan tiriyay marka halkaasaan runtii aan ku oran karaa waan ka bilaabay aanan sidee toosoo badan u soo bandhigin laakiin xilligaasaan bilaabay wahagag waxa ku jirtay hadalkaaga masraxiyad baad samaysay masraxiyadu kulay waa qaab macna riwaayadeed ah oo kulay la soo bandhigo oo masraxiyado dad kala duwan ay jilaan marka masraxiyada يعني عصر قرن يمكن لمريو يتكلمون iyo moobilada iyo waxyaalo noocaas ka sameysay marka maasooyin baa iyada ku dhex jiray maqaab riwaayado kale baad loo jilay sida loo waxay ahayd masraxiyadaasi gebigeedu waa qaab maanseysan bay ahayd waxa taa ma oran karo hadal caadi ah ku dhex jiray eri kasto kamida masraxiyadaasi qaab suugaanaysan oo maanseysan ayuu ahaa waaga khadra aynu u nimaadno hadaba adiga hadaba maasooyinkaagii urintaaday kuwa aad imika aad maanta doonaysid inaad la wadaagto inteynaan u iman waxa jira waxa sheegtay inaad ciyaalka aad ababinaysay aad wax u dhigaysay aad qaab suugaan ku barbaarin jirtay oo aad marka suugaamihii aad soo qaadan jirtay aad caruurta bari jirtay abwaanada kala lahaayeen ma hal abuur adiga ku xiisa gelinayay baad kuwooda soo qaadan jirtay mise mid abwaan waliba dee tiyaas tiraado caruurta way u qalmaysaa inaad aad qaybsiiso ama aad wax ugu sheegto waad mahadsantahay walaal inta badan runtii horta kulli qof wax u xiiseeya anigu waxaan inta badan aad u xiiseyn jiray abwaankeena weyn Hadraawi maansooyinka Xabib Ibrahim Warsamo iyo Weersamo oo kale Xasan Weersamo labada abwaan baan inta badan aad ii saameyn jiray marka labadaasaan inta badan hadaan wax ka maqashiyo qaybaha aan ka qaatay way Hadraawi oo kale maxaad ka soo qaadato aad caruurta la wadaag jirtay runtii Hadraawi waa runtii suugaanyahan aad u qiimo badan meelaha aan ka qaatay maansa ducaa ayaa kamid ah waxaan soo qaadan jiray maansa leedahay sifaadkaaga deerma xidho dareenku ma gaari karo garaadku ma duubi karo dabnuhu ma macnayn karaan qof doona inuu dhex galo ku daali ma dhaafi karo oo markaa qaab la xamiisan aan oran jiray sifaadkaaga deerma xidho dareenku ma gaari karo garaadku ma duubi karo dibnuhu ma macnayn karaan sifaadkaaga deerma xidho dareenku ma gaari karo garaadku ma duubi karo dibnuhu ma macnayn karaan qoftoona inuu dhex galo ku daalay ma dhaafi karo intii dabin ii xidhxidhan intii balo ii dhahsoon intii dalag loogu dhaco taluumaha ii qarsoon rabbow dabacaga saar saasoo kale ugu sameeyay
marka qaab yara laxan baad saartay waad weersamo kale waxaan qaadan jiray maase isaga laftirkiisu tahriibka ka tiriyay oo xagga dambaan ka qaadan jiray qaybta dhiirigelinta oo qof baa tahay guul abuura qof baa tahay guriga leela qof baa tahay gaar ahaantii u gaajo baxo iskeena kankaa kuma dheero caaro oodan laxanna aan u saari jiray iyadana sidaad ugu luuqaysa isku laxan ba runtii tan iyo taas ay noqonayaan haddaan u soo yaro noqdo kuwayga aan anigu markaa aan lahaa markaa caruurta ku barbaarin jiray markii u horeysay waxaan sameeyey tan heestan haanta ayaan soo qaatay laxankeeda markaasaan idhahaa haddaynan dadaalin oo aynan ku daalin duruusta aan barano ayaa u dadaali oo yaa u danayni dalkeenani hooyo taasoo kalean usii wadi jiray waa intii aad macalimadda ahayd iyo caruurta waxyaalihi aad ku barbaarisay in maansooyinkaaga u nimaadno maanso la yidhaahdo mahadho ayaad samaysay mahadho maxay ka hadashaa mahadha waxay ka hadlaysaa horta waa inagii doorasho galnay qarankeena jamhuuriyadda Somaliland doorashadaasi runtii waxay noqotay doorasho aad hadalhaynteedu caalamka oo dhan looga hadalhayay aniguna runtii waxaan aad ula dhacay qaabka ay doorashadu inoogu dhacday inagoo isku duuban mucaarid iyo maxaafadba iyo guushii ay ugu dambeyn halkii aynu soo gaarnay markaa maansada leeraa mahadho waxaan kaga hadlayaa dareenkii aan u qaande igaga dhashay doorashada waxaanan si guud si gaar ah ugaga hadlayaa madaxweynaheenan hadda aynu dooranay mudane muuse bixi cabdi iyo anigoo dardaaran iyo ducaba inta badan isaga u gudbinaya iyo sidoo kale waxaan kusoo qaadanayaa runtii dareenka aan la wadaago musharaxiinteennii kale iyaguna tartamayay oo aan odhan karo iyaguna rool koogii dee markii ay dhammaatay sidii ay uga ciyaareen mahadha markaa maxay tiraahdaa mahadha waxay tidhaahdaa waa mahad ilaahiyo heedha maalin weynoo dadku wada manqaxayo magicii qarankeeniyo mowqifkeennan wada jira adduunka uu ka maragiyo afrikina mabsuud tahay milgahanaynu gaadhniyo sharaftiiyo midnimada midhahaa ka soo go-ay mawlaheen gadaashii waxay meel u taallo taariikhdu milicsani cabdiraxmaan mas-uul qaran hayin qaata maatada iyo faysal mahuraan hadhac milicda laga galo oo runtii waxaan halkaa usoo qaatay guusha aynu gaadhnay calaamad su-aal baa saarneyd ilaa iyo aynu lagu dhawaaqay oo ay sidaynu ogeyn aynu wax walba inoogu dhacaan commissionku xaqiijiyeen oo musharaxiinteennii aqbaleen natiijadii marka iyaga qudhooda qayb ka ahayd leedahay guusho dabcan aqbalaadoodii baa qayb ka ahayd waa xilligii aynu kala degnayba waa tii aynu xoogaa isku yaraa warwarnay wadnaha farta lagu wada hayeela lahaa yani sidee wax u dhici doona marka iyaga saasaan runtii aan uga horreysiyey xataa madaxweynaheennan mudane muuse bixi cabdi oo haddayna iyagu sidaa ay noo samayn lahayn aqbali lahayn muran bay ku jiri lahayn oo maanta heerkan aynu joogno labadeenna xataa sidan iskumaynaa soo horfadhisanay marka isagana saasay marka iyaga ugu soo qaatay marka waxaan idhi afartaasi meershow macneeyo tiraabaya anoon runtii madan horena halkan oo kalena maaniman waxa ay soo kiciyay waxa weeyaan يعني dareenka aan xalada dalku galay iyo waliba sida aan ugu hambaliyeynayo in waliba rajo fiican uga qabo madaxweynaha ilaa kharasiyo waxaan idhi afartaasi meersho macneeyo tiraabay anoon hore iman madal miimleyda maansada mas-uulkan u tiriyo madaxweyne qaranow mudana muuse biixow muwaadiniintu idilkood meel kastay ku sugan yihiin hambalyo aad u mug weyniyo salaan qaaliya muuse ka guddoon madaxweyne waxaan madaxweyne shacbigu waa ka markhaati military aqoontii meeshii aad ka gaadhiyo mansabkii aad haysiyo mustaqbalkaaga idilkii kolay tahay masiirkii ubadkaaga muusow adigoon u meeldayn waadigii ka maarmee nafta milicda raacshee macaluulay gaajee dhiiggaaga miirtee hubkuu moorgan soo riday miiggii rasaastii madficiisu kugu dhacay mar labaadna kugu dhacay oo waxay muujinaysaa taariikhdii dee madaxweynaha iyo halgankii iyo halkuu kaga jiray
mar labaadna kugu dhacay mixnadiyo dagaalka halyey lagu majeerto maamuus labaad tahay murtiyahan aqoon loo garta madal ka niqi kara mowqifkiisu adagyo misna samirka moogeyn sida muur la dhaansado mid lama hadiyaa tahay oo runtii madaxweynaheena waxyaalaha aadka dee dadkeena haldoorkii ay ugu majeertaan waxaa ka mid ah inuu nin runtii wax badan soo qabtay oo dagaaladii sokeeyay dalkii nabadeyntii ka soo qayb galay iyo dibadhiskii dalka aada ugu suntan wuxuu mowlaheen adi karti kugu manaystiyo miisaankaaga gaarka miimku koobi maayo hadal meel ma buuxshee shacbigaa markani hadal meel ma buuxshee waxaa taa ka marakacay shacbigoo markani adi maamuus kugu hagoogo madaxweynahoogii muuse adiga kuu igmaday madaxweyne adiguna baan markaa waa maalmadunidiye mahadhooyin reebo ummadana mideegabi oo imika runtii waxaynu ka warqabnaa inay dadkeenu aada moodo inay xusbiyadii ay aada ugu kala qaybsameen markaa madaxweynaheena waxaa haatan dee laga rabaa waa inuu ummadii siduu dee sideedii hore ay u noqon lahaayeen mucaaradii muxaafid badda uu maanta madaxweyne u yahay ayaa markaa laga doonaya marka waxaan nidhi madaxweynuhu muuse kuu igmaday waan kuu mushxaradno waan kaa mabsuudno muxuu baana qaadee madaxweyne adiguna waa maalmadunidiye mahadhooyin reeboo ummadana mideegabi noo noqo mahiigaan mayda ay aroornimo dalka oo dhan maashee mas-uul qalinku dhiiglaa muusow ka dheerow musuq maasuqana mari midi weyn u qaado waxyaalaha dee dadka ama dawlad ragaadiya waxaa ka mid ah musuq maasuqa waxaan cudur maatadii galay dhalintiina maaruqay duqaydii midh kaga tegin yaa minanka joogee yuu maal wixii nool maalin keliya laynina adaan kaaga maqanahay cudurkaasina kulley waa qabyaalada weeyaan waxaan aragaagu meel dheer maanshe ha gaadhee digrii muuq dhaweeyiyo diirad meelfog aragtaa madaxweyne qaado laas qoray ilaa maydh maraakiibta joogtay macdanteena xadi kara aada aragtid muuse murtidaasi la garo oo halkaasi waxaan sheegayaa qofka madaxweynaha runtii waa mas-uulka qaranka u sareeya laakiin waxaa jira dad aan isaga ka turjumin sidoo kalena xil ka haya dawladda oo ku magacaaban marka waxaan leenahay dadka xilalka kala duwan loo dhiibayo ee meelaha kala duwan ka shaqeynaya meel dheer iyo meel dhowba ka shaqeynaya ha noqdaan dad fikirkaaga aaminsan oo kaa turjumi kara waxa aad doonaysa inaad qaranka wadadaad jeexday wax ku maamulaya sax laakiin hadduu yahay qof aan sidaa aad wuxuu doonaysa u wadaynin runtii ceebtu isla madaxweynaha ayay dib ugu noqonaysaa marka dadka waxaa kaloo jirtaa sida askarta oo kale macallimiinta oo kale dhakhaatiirta oo kale dadka runtii bulshada serviceka u haya ama public serviceka haya oo inta badan iyagu aan mansubka ay hayaan wixii u qalmayay aan ku helin baan iyaga laftirkooga kula dardaarmaya madaxweynuhu dadka macallimiinta iyo askarta ugu mudan oo muciinkeeni weeyaane xaqoodii maqnaa iyo manfacooda gaadhsiiya dhakhtarkana ha moogaan caafimaadka maamula mushahaaro dheeriya u qor wuu mutaysteen somalilan madaxweyne muwaadiniinta ku nool wixii meesi dareeriya wixii maal ee dhex yaala wixii kayd macdaneeda dhirtuu mawla ku uumiyo min ilaa biyaheega marinadaa hawadeeda mashaahidiinta ku noolna adiga ka mas-uula xilkaan maanta ku saarnay muwaadiniintu dhammaan ina ay mahadshaan baan mawlaheen baryayaaye adiguna ka midho dhali mawlaheen garabkaaga madaxweyne ha joogo galladiisa ku maamul aayaadkiisa muuqdiyo magacyadiisa gaarkaan macbuudkeen ku barinaya madaxweyne muusow maanshee ictiraafka midigtaada ku saxeex waa hagaag maanshee ictiraafka midigtaada ku saxeex dabcan warajo guud ahaan madax iyo shacibka somalilan ay wada qabto in mar un himiladaas ictiraafka la gaadho waynana u rajaynaynaa in guule inoo soo dhaweeyo oo uu mas-uuliyiinta imika la doortayna kula garab galo adigu waxaan kugu jiray hal abuurintan iyo curintan aad kugu jirtaa
waxaa jirtaa meel aad ka yara hidaysanayso mise waa xun adiga aada la koysatay may waan hidaysanayaa runtii ayeeday oo kale ayaa gabi jirtay aduu dee ma hayaba gabayadeedii laakiin waxay iga soo gaari jiray inay ahayd qof aada runtii sugaan wax u curin jirtay ama dadka kale abwaanada dee qarnigeenii hore Soomaalidu dad dee iskugu jawaabo maansada bay ahaan jireen oo hadalkii markaan yaraayo kale iyada runtii aada ugu aqbarbaaray waxa markasta markaa iga soo gaari jiray hadal ama ayadu tiri ama qof kale yiri ay soo warisay markaas mararka qaar waxaan maqli jiray gabayo dad kala tiriyeen oo ay iyada aan ka maqloon hayba markaan iskuulka dhigan jiray ayaan halkaa ku maqli jiray ayaad gabayga maqli jirtay soo kiyaada iyo ka maqli jirtay kiyaan ay waa xaga kulay wax qabashadeeda fiicnayd kulay waa loo kala abuuran yahay dumarka hadii jeer waxa la yiraahdaa de way brombraan marka brombarka sees ku tinaaday أنا والله هرتا ما برامبرين waxa inta badan laxamada ay raasmay ma wali brambr ma tirin waaga anu nimaadno maansada ismoog ismoog maxay la oranaysaa ismoog waxay ka hadlaysaa xagga waxbarashada ka hadlaysaa way waxay sawiraysaa heerka maanta waxbarashada marayso ardayga runtii waajib baa saaran oo waxa waajib ka saaran yahay waalid baa ku tabcaya waxbarasho ayaa laga doonaya marka waxa dhacda waalidkuna runtii isku wada duruuf maaha oo waxa jira waalid ilmihiisa sidoo ku korinayo ee uu dareyska iyo anfaciisa ugu helayo ilaahun og yahay marka baryahan dambe waxa soo baxday in dhalinyartu istuusadaan oo qofka runtii duruufaha kala duwan ee noloshu qofka duruufada ku nooli waa inuu ka duwanaado qofka kale oo waalidka la ku tabcaya ee sida waliba adag ugu dadaalay inuu wax barto inuu isagu halkaasi aanu kan kala taagaynaanu istaagin marka waxa dhacda inta badan waxaan arkaa marka aan socdo dariiqyada caruur u badan waliba caruurta iskuulada dawladda dhigta oo dareyskii xiran oo meelaha fadhiya ama dukaan bay hor fadhiyaan waa xilli lagu jiro xiisadihii waxa kale oo aad ii damqa dadkeena ninka dukaanka qof baa iskale qofkani marka caruurta yar yar ee meesha fadhida kama damqanayo moodan warda iskuulkiini meey maxaa meesha idin dhigay anoo runtii aad uga xun arintaasi waxa maan dhacday meel internet aan galo waraaqan ka daabacanay goor waxay ahayd 8 iyo barkii subaxnimo waxa soo galay marka laba caruur ayaa soo galay oo meelaha 10 jir oo dareyskii xiran oo bugaagtiina sita labadii caruur cala duul waxay galeen ايش بفرست internet فرستان ninkii bay marka soo lacag yar bay miiskii saareen marka soo daabeeyadeen uu sii daayay aad baan runtii u argagaxay caruurteena waa caruur yar oo ma jara hawaansan waxaan sirmay ilmaha yar baad dhirbaxdaa tira war maxaa meesha ku dhigay iskuulkaaga hadana waxaan la yaabay ninkan weyn bal waxyaalaha qaar aan laga shaqaysan baa jira caruurta ka shaqaysanaya xilligan joogto dareyska ixtiraam waaye buugaagtii ixtiraam waaye saddex kun oo shilin oo nus saaca oo ilaahayba kulli og yahay diifta ka muuqatay caruurta ay sidii kulliba lagu soo siiyay intuu ka qaatay internet u shiday ayaa runtii aan maasadaasi ka curiyay aan leeyahay marka caruurtan iyo dadkii dhalay horta warba isku ma hayaan waxa laga doonayay marka maansadani waxay leedahay 7 baynu joognaa nafluhu galay sursuur oodan saani uma seexdo salowba idilay oo hurdada saani uma seexdo maalinkiina sawd baan maqlaa saacan joogabe sawir baan arkaa aan khalqigu saarin dhaayaha daad soo rogmaday baan intaa sacab ku leexshaayay salma dhigo intaa waan socdaa samir la'aantayda xaalkan ku suganahay qofkan surun ku sii jiiro ruux sawaaban buu ii fahmaa oon sax baa ahayn anuu fakaraya mararka qaar ayaan dariiqada maraa sidaan ahay rabaa ogay haddaan sheego sababtaasi sabigiyo dhallaankeenii baa seegay marinkii sariibadaha iyo suuqyada barkood subaxdii joogaane dugsiyada 9kay tagaan sidaad u jeedaane saani uma qaataan darsiga saynis iyo maatis arday saaqiday hooyadii bacadka sii raacdo salad iibinayso iyadu salontay oo qiiqday ilmahay sugaysaana yahay midaan sirta haynin silaca u dambeeyaa qalbigu salow ka qaadahay oo hooyada duruuf adag ilmeeda ku korinaysa
ee ilmaheeguna hadhow midhaheedii ay ka weydo runtii dee waa hal bacaad lagu lisay halkaa unbay nolosheedii ay taagnaanaysaa ubadkaasi suuraafayo saddexabaa maalin soo galay meheradaan anigu feel ka saarayay 3 shilin intuu dhiibay buu sii dadhaa yidhi markii aan indhaha saaray baan ciilkii sare booday salfuudaydku waa naar haddaad garanaysaadooye dhirbaaxada masabigaa ku wacan mise kan sii daayay baan isweydiiyey jawaab saxa markaan helay ayaan duca u soo jeedsay sarreeyow ilaahow adaan tale ku seegayne ninka hadalka kii saxa dhehee samaha doonaya ee khayrka saadaaliye xumaha aan soorin si kastoy ahaataba samrey salalin een boodin sacabada hadduu soo fidsho adig ku soo tuugo marni inaana soo celinahayn waa daliil sugane dhalintayda eebow u sahal marin saxay raacdo fahansii wixii seegan iyo xilalka guud saaran wixii saxa iyo inay kala gartaan xumaha soogsoogan oy waalidka u samafalaan sugaya dheeftooda sarreeyow ducada iga ajiib saatir baa tahay sarreeyow ducada iga ajiib saatir baa tahay dabcan waad u ducaysay oo dabcan intii macalimana way ku yarada maqdo maystariyo mar haddii kulley macalinku marka dee arday buugsitay iyo wax yara sagsaaga u arko dabcan waayo waa waalidka labaad baa la yidhaahdaa macalinku runtii dee waad adigu waxaad arkaysaa markaad macalin tahay macalinku waxaa horta hadiyadda ugu weyn uu jeclaan lahaa haddii la odhan lahaa qof macalina hadiyada lagu siiyo wuxuu jeclaan lahaa ardayda ama arday oo dhanba inuu dee waxbarashadiisa ku guulaysto heer ka gaadho markastood aragta arday liita ama waxbarashadiisii sagsaagayana waad ka damqanaysaa runtii waa hagaag kulley maansooyinkaaga bal intii aynu ugu talagalnay qaybahoodii dambe inaan doonayaa inaynu kusii rasiqno xagga maansada iyo marka laga yimaado maansooyinka aad imika tirinayso suugaanta qaybaheeda kale xagga heesaha iyo buraanburada iyo gabayada iyo maxaan idhaahdaa masafta iyo isee isku tihiin kulley maansooyin ii diyaarsan baa jiro oo aanan hadda doonayna meel baan ugu talagalay inaan kusoo bandhigo oo xagga dhalinyarta runtii aada u quseeya iyo waxyaalaha entertainmentka ay jeceshahay dhalinyartu aada runtii u quseeya oo 2 maanso ah ayaa jira oo iyagu aanan hadda doonayn inaan barnaamijkan kusoo waa hagaag iyaga xilli baad la sugaysaa xagga jilidda iyo masraxiyadaha say isku tihiin anigu shakhsiyan maan jilin laakiin aad baan runtii u jecelahay waayo waxaan is idhaahdaa anigu waxyaalaha message-ka gudbada si toosa bulshada ugu gudbin karaa runtii waa masraxiyadaan aanu aaminsanahay haddii la doonayay in wax dadka laga wacyigeliyo dee waxa qaab masraxiyeysan in dadka loogu gudbiyo ayaan waayo dadka qaar baa jira bulshada qaar aan heesaha jeclayn baa jira oo dee aan doonaynin inay hees dhegeystaan heestuna dadku markaa dad badan baa markaa miisigan ku mirqaama ee aan nuxurka heestaba aan doonaynin inay fahmaan markaa aad baan u jeclaa runtii masraxiyadahaasi laakiin weli isku matiin beer dilaacshe ayaad iyadana aad tirisay beer dilaacshe maxay ka hadashay beer dilaacshe waxay ka hadlaysaa iyada laftirkeedu waa maansooyinkii badnaayee aan tahriibka ka tiriyey ayay ka mid tahay tani waxay kaga duwan tahay si toosa ayaa waxaan ula kulmay qof dhibana ah oo tahriibka si toos ah iga sheekiyay qisada kasoo gaadhay tahriibka maalmaha ka mid ah waxaan marayay dariiq baan marayay xilli 2 oo kala bay ahayd islaan aad dayf uga muuqato ayaa iga hortimid qof weyn waayeela oo 2 bacoodna 2 gacmood ku kala sidata islaantii bay ku tiri hooyayska way islaantay markaa waxay weydiisatay inaan telefoon u qaraaco telefoonka markaa warqad yaroo bacahan ay sidatay ku jirtay bay kala soo baxday telefoonku markaa waa telefoon lambar dheer ah oo aan local ahayn kadib markaa dibadii u baxay lambar markaa xagga dibadda lambar dibadda hooyadan ugu qoran warqada markaa lambarkii baan u qaraacay lambarkan markaa waa inan ayadu dhashay oo markaa magafayaashu haystaan sida ay markaa ii sheegayso inankii baan telefoonkan lacag yar ku shubay way la hadashay markaa inanka la hadlaysay ayay ooyday islaantii markaa oo ay qisada
dhibta haysata iyo duruufteedu halkay marayso iyo waxay ku sugan tahay iyo si aanay waxba ugu heli karanay meesha kaga sii dayso ayay u sawiraysay hooyadaas kadib markaa waxaan aad ula yaabay markaa islaanta duruufta ku sugan qofka dhalinyarta ee meel joogay wax ka sugaya ee ka sugayay in lacag inta u soo dirto uu dooni sii raaco sii socdaalkiisa halka ka sii wato aniga laftirkayga ka qayb qaatay bal inankaasi la hadlo oo aqal celisay on telefoonka kala hadlo inka soo suuq qudhiiso dibana la haystay marka waa dhibana laakiin haddana markaad eegtid hooyadan iyo dhibta ay ku sugan tahay waxay ii sheegtay runtii aad baad iyada uga damqanaysay waxay ii sheegtay hooyadani bariis bay sidatay labada bacaha bariis baa ugu jiray bariis qayrin baa ugu jiray waxay ii sheegtay muddo ku dhow ilaa 6 bilood inay xaafadaha cunto bariis qalalan ay ka urursanayso oo ay dib intay gadbado ugu gurto ay dib u iibinaysay si ay bal lacag yar u hesho oo amaah iyo nooc walba way isku dayday runtii markaa maasadaas bardi lacsho la yiraahdo ayaan ka tiriyay ka sameeyay qisadaasi koobsanaysa markaa waxaan idhi goor ay tahay bacad kulaylo ninkii baabuur lahaa inuu shaagu u banjaro ka baqanayu baxayn ayaan arkay hooyo beerka ishayso bacana sidataa waxay tiri bilis ma tahay ma kuu bad qabaa damirku halka badankan ka naxay waxaan idhi baahi oo dhan ilaah baa boqor ah oo adoonka ka biin kare boqolka aan kula gale bal ii sheeg baahidaada bacdeedii intay furtay waraaq kala soo baxdo waxay tiri hooyo bilan balaan la hadlee garaac inuu lambarkaasi baxo codkiisu markuu u baxay ayaa indhaheedii bayl la moodo biyo la kariyay ka soo burqadeentu sidiito hadalkii bay bilowday iyadoo barooranaysa waxay tiri hooyo baashe bariiska haddii aad diido anoo baasta kuu amaahda habeenkii ku siiya beed aroodnimadiina biinis ayay bala kuu gawaantay oo ku tiri islaantan buuran boorsada lacag ba uga buuxda haddaad baxsadood dhaqaaqdo si uunbay kuu badbaadin adoon su-aalin baashe bartaan ka helaya biilka bishiina iyo bugaagta baryada aadamaha hooyo bakhaylada beledka joogaa inaan kulba baab qaraaco idhaa boqoluun isiiya bishaasi markay dhammaato ayaan soo bixin walaale adaay baday beer dilaacshe biyaa iga galay cagaha bacaan ku sitaa gacmaha bariis baan tuugsadaa bakhaara u dhiibaya baysteen ku xaraashaya waxaan bixin lahaa naftayda si ay taadu u badbaado ha yeeshee looma baahna markii aan badbaadadaada ka doorbiday baaba ayga ayay ariniiga baahday islaantu way shaqayn jirtay say sheegtay kumii soo dhawaan markaa shaqo ayay ariniiga baahdo shaqana uma bixin baryaba oo caruurtiiniina baashay iskuulaadkii ka baxa oo barkood biralaabiya iyo waxaabay noqdeen biyoole bay markaa haddaad bari diidi layd inaad kaba baalashayso caruurtiinii barkood si ay u helaan baris bulaacadaha yani shaqadeed su kasta intii kaa yaryareed adiga anuu yani imiga mas-uulba kamid agoonna way hayn caruurta marka intaan ciilkii la booday oo aan telefoonka boobay ayaan idhi beer dilaacshe alla ilahay bacad wareejiye oo islaantii dee waa kan cadceedda wareejiyey hooyadan kuu bixisay baashe iyo boqol wiilka roone si aad u barbaarto adigu qeyrkaa uga raacda baal ku geysay iskuul barayfad si aanad bacad u mudanin baabuurka intay ku saartay iskuul barayfad u dhigan jiray ugu tiro markaa secondary buu ayuu ka baxay ku geysay iskuul barayfad iyadu barqin iyo habeen mar qura aan barida dhigin bararka jidhkayga saaran baruur loo qalad fahmay markaad aragtid waxaad moodaysaa qof buuran inay tahay laakiin waa dee buurnidii nafaqa darrada laga qaaday adoon weli biyo waraabin balaayo aday ku haynin haddaad yurub beegsanayso haddaad saxara u bareedhay hooyadaa beerkayga dooxday baabuurtu inay ku jiidho wadada barhtankayga hooyo ayaa laga baqanayaa islaantani beerlulkeeda bartaasi intaad ku dhaafto naftaada badbaadadeeda adaa ka mas-uula baashe wahga isagiina waad u caqal celiso waxaad leedahay xaajiyadan dee qasnada meel ma yaalaan dee maxaaba u yaalaba marka waa marka nafteedii baa wada halis ku jirtay nafteedii baa dee warwar qofka waalidkii markaanu waxbana dee gacanta ku haynin warwarun baa lasoo darsay ayaa lasoo darsay wahagaag aad baad mahadsan tahay khadra ibraahim ismaaciil oo barnaamijka madasha hal abuurka ee fankii suugaanta telefishinka qaranka Somaliland marti igu ahayd
guud ahaan daawadayaal barnaamijkan ayaan intaasi kusoo gabagabeynayaa waa aniga oo Xamse Soodi Nuur ah iyo Khadra Ibraahim Ismaaciil oo toddobaadkan marti ugu ahayd macallimad suugaan yahanadana ah isla markaana telefishinka qaranka nagu soo booqatay inagala qayb qaadatay qaybo kamid ah suugaanta ay curisay waana bare ama wase macallin dugsiyeed ama iskuul oo qaybaha kala duwan carruurta wax u dhigta tan iyo intaan dib barnaamijkan ku dhigiisa ugu kulmi doono waa aniga iyo barbaarta iyo axbaabta igala qayb qaadatay barnaamijkan Cabdi Cumar Jibriil oo xagga farsamada mixerka iyo waliba kamaradaha inoo hagayay Jimcaalo Cali Ibraahim iyo Maxamed Cali iyo aniga Xamse Soodi Nuur oo idinku dhaafaya tan iyo intaan dib ugu kulmayno barnaamijkan dhigiisa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.